وعليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا فرانسيس ميديا. sidoo kale asxaabtayda qiimaha badan kuna xiran channelkayga Francis waxaa idinla socodsiin doonaa inaan soo saari doono sheeko la magac baxday kun habeen iyo habeen. sheekadani waxaa soo qoray nin lagu magacaabo Cabdiraxmaan Xasan Anteeno, anigoo Maxamed Ali Francis ana insha Allah waa idin loo qeyn doonaa. haddaba intaan sheekada bilaabin, macluumaad walba ku saabsan sheekada kun habeen iyo habeen waa sheeko la isku khilaafay asal ahaanba halkay kasoo jeedo. dadka qaar waxay qabaan inay kasoo jeedo boqortooyadii Saasaan ee xukumi jirtay Hindiya iyo Sandi, halka dadka taariikhda wariya qaarkood kalena ay leeyihiin waxa ay ka dhacday Ciraaq. sidoo kale waxaa la sheegaa inay ka dhacday Masar, xitaa Yahuuda waa la wariyay, laakiin arinta xaqiiqda u dhow ayaa waxay tahay boqorka ay sheekada ku socoto ee Shahriyaad inuu xukumi jiray meelo asaasi ka mid ah. sheekada waxaa ku jira qisooyin badan oo caadi u naqaano, sidii qisadii Calaaudiin iyo Faynuustii yaabka lahayd. waxaa kaloo ka mid ah sheekadii Cali Baaba iyo 7 safar iyo badmaaxii weynaa ee Sindibaad. ilaa hadda lama yaqaano qofkii asal ahaan sheekadan qoray, laakiin casrigii dahabiga ahaa ee khilaafadii Cabbaasiyiinta ayaa sheekadan la soo tarjumay. sidoo kale waxaa Ingiliish loo tarjumay sanadkii 1704. ma jirto luuqad caalami ah aysan sheekadan ku qornayn, waana sheekada loogu akhriska badan yahay adduunka. waxayna ku tarjuman tahay luuqada sida Arabic, English, Talyaani, Francis, Greek, Spain, Portugal, Germany, Sweden, Denmark, Russian, Scotland, Poland iyo Hungary. xitaa Soomaali ayay ku qoran tahay. sidoo kale waxaa laga sameeyay filmaan iyo musalsalaad caan ah, laakiin waxaa xaqiiqo ah inuu jiray boqor Shahriyaar iyo xaaskiisa Shahrazad. laakiin waxaa la isku khilaafay in sheekooyinka meesha ku qoran ay ka sheekeynayso Shahrazad inay run yihiin iyo in kale, laakiin waxayse u badan tahay in sheekooyinka qaarkood yihiin sheekooyin khiyaali ah oo hab aad macaan si farshaxan lehna loo qoray, sida sheekadii Cali Baaba aan dib ka sheegi doono, iyo sheekadii badmaaxii weynaa ee Sindibaad, iyo sidoo kale sheekadii Xamaaligii iyo gabdhihii. waxaa kaloo ka mid ah sheekadii boqor Yoonaan ee ninkii xaakimka ahaa ee Rayaan la dhihi jiray. waxaase ku jiro sheekooyin xaqiiqo ah sida sheekooyinkii ay ka waranayso boqorkii caadilka ahaa ee Haaruun al-Rashiid. sheekada waa mid aad iyo aad u dheer, waana mid ka mid ah sheekooyinka ugu dhaadheer ee adduunkan intaan saaranahay la qoray. sheekada gabadha warinaysa ee Shahrazad waxay ku qaadanaysaa 1000 habeen iyo habeen, inkastoo buugaagta qaar lagu soo koobay ilaa 200 habeen. sidaa darteed aniga xitaa ma aqaano muddada ay soconayso, laakiin waxaan rajaynayaa inaan gebi ahaanba iyadoo turjuman aan idin soo gudbin doono. laakiin waxa ugu muhiimsan ee aan idin hubo ayaa waxay tahay inaadan marnaba sheekadan ka caajisin, oo midba midka ka dambeyso kasii macaan tahay. daqiiqad kama caajisaysid, taas aniga ku hubo. sheekada iyadoo tarjuman ayaa maalin kasta Francis Media idinku soo gudbin doonaa insha Allah, iyadoo tafaaftiran xalqo ah. micnaha habeen kasta hal xalqo ama hal sheeko ayaa la wadaagi doonaa. waxaan idinka rajaynayaa inaad igu dhiirigelin doontaan tarjumista sheekadan xiisaha badan, maadaama aan jeclaystay inaan afkeena hooyo ku tarjumo mid ka mid ah sheekooyinka dunida loogu jecel yahay. insha Allah subscribe saar eena share garee si uu u gaaro saaxiibkaaga ama walaalkaaga jecel inuu dhageysto sheekooyinka taariikhiga ah insha Allah.